booliiska deegaanada bari ee dalka Norway ayaa ku guuleystay in ay soo qabtaan darawal laysla'aan wadayay gaari ka oo shil ku galay mid ka mid ah wadooyinka degmada Lillestrøm ee dalka Norway. Darawalkan ayaa lagu soo waramayaa in uu gaariga keligii waday, dabadeedna gaarigii oo uu ku waday xawaare sare uu ku dhuftay biraha ku yaala dhaxbartamaha laamiga, taa oo sababtay in gaarigu uu soo gaaro burbur xooggan. Ha yeeshee isaga oo darawalka ahaa aysan waxba soo gaarin. Booliiska ayaa si degdeg ah goobta uu shilkani ka dhacay ku gaaray, wuxuuna ninkan isku dayay markii uu shilka galay in uu gaariga ka baxsado oo uu lugeeyo isaga oo ka cararayo booliiska oo uu arkay roondooyinkiisa oo wadada ku soo jira. Ha yeeshee booliiska oo dabagalay ninkan ayaa waxa ay ku guuleysteen in ay soo qabtaan isaga oo lugeynayo, kadibna baaritaan ay ku sameeyeen ayay ku ogaadeen oo ay ku heleen in uu watay toorey ama mindi iyo sidoo kale faas aad u weyn oo uu gaariga albaabkiisa gashtay. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa in ay da'diisu tahay da'da sodomeeyada, waxaana lagu soo waramayaa in hadda la xiray oo xabsiga loo taxaabay, iyadoo intii aan xabsiga la geynina la sii marsiiyay isbitaalka si loo ogaado in uu cabsan yahay oo ay jirkiisa ku jirto daroogo ama khamri. Taliyaha howlgallada booliiska deegaanada bari ee dalka Norway, Henrik Lassen, ayaa ku waramayo in ay darawalkani soo qabteen isaga oo ka baxsanaya roondadii booliiska oo lugeynayo, wuxuuna sheegay in ay ka heleen toorey uu watay iyo faas uu gaariga ku watay. Wuxuuna intaa ku daray in ay u dheer tahay inuusan lahayn laysanka ama ogolaanshaha ah in uu gaadiidka wadi karo. Wuxuuna sheegay ninkan 30 jirka ah in uu yahay reer Oslo, ha yeeshee lagu qabtay degmada Lillestrøm oo uu shilkan ka geystay. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa in lagu hayo xabsiga, baaritaanna lagu sameynayo. Waxaase la yaab iyo ama kaag noqotay in ninkan oo aan lahayn laysan darawalnimo uu gaari watay. Ha yeeshee waxaa mucjisadu ay tahay baangadan aadka u weyn iyo tooreydan soofaysan waxa uu u adeegsanayay una watay ninkan 30 jirka ah ee shilka gaariga ku galay isaga oo aan laysan lahayn. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.